كوني سجال بقولي سجالي لحدك مدحوينه ولا دلي طلقة مركب هاي الله يرحمه عبد الرشيد على شرماركه لا سعانود بالمتوكتي شن مالمود كبعدنا انقلابكي waa dhacay انقلابكii baa dhacay halkeed joogtay markii waxaas anigu London baan joogay way maxamed Mareykan buu joogay Mareykan buu joogay way markii geeridu dhacday ayuu soo duulay London buu yimid waxaan airportka ayaana nadaas laha aad ka raacdid bay joog buu leeyahay horta wax say wax noqon doonaan garan maaye anna markaa ubad raadis baan ahaa oo cisbitaal baaban ku jiray oo waxa ii socday dawooyin waxba ii socday marka wuxuu iska dhamayso anaa ku soo cidiray halkii baan ayaanu uu ku soo baxay ana halkii baan markaa ku xaray dhowr cisho dabadeed shan cisho dabadeedna waa tii inqilaabkii dhacay waxaan soo noqday inuu 22 cisho iyadoo inqilaabku jiro ayaan soo noqday $380 baan la soo galay dalka markaan hoteelkii aan ku jiray iska bixiyay markii horta safaaradda Soomaalidu ay ku leedahay London ee baabuurkiisa ayaa day qaadi jiray ama istaalka igeyn jiray maalintii inqilaabku dhacay baa horta gaarigii la joojiyay darawalkii iyo gaarigii la iga joojiyay hoteelkii aan deganaayay la bixin lahaana iska bixi baa la yiri in yaroon faraha ku haystay ayaan iskaga bixiyay ilmo maxamed oo iyaguna iskuul ku jiray oo qaar England joogan iyo qaar kalena fee baa laga rabay marka waxyaabihii yaraa dumarku iska lululi jiray ayaan u iibiyay intii baa hadaba idinkuna inta haysta waa la tuunsanaa marka cigaalo marka hore tijaarad baa lagu tuunsanaa markaana bahasha qolada faraqdu kamid ah waxba ka soo gaar farihiisu way daldalooleen laakiin ummadda u daldalooleen caruurtana intaasan uga imi $380 ayaa la soo jeeday horteedna waxaan ka soo noqday UN kan u shaqeyn jiray 2 sanadood iyo badh oo intii mucaaradka haday wana mid ka shaqeeyo marka adaa inta UN ka u shaqeeyay ana UN ka Libya joogay WHO oo macallimad baan ka ahaa umulisooyinkan tababari jiray umulisooyinkii ugu horeeyay Libya ana u tababaray qaar kuwan tababaray imika waa retire garoobay maxaa marna Djibouti baad ka ahayd markii dambe waa ku 280 markii dambe 9 markaa noqotay meeru isaga soo muxidnay uu xidhay airport kaniga laga xidhay adigana meel markaa wad badeeday adigu maxaa sameeyay markaa ogaatay odayga la xidhay odayga waa xidhan yahay reerkii hooyo iyo walaalo iyo caruurtii wixii waa meeshii joogan tan waxaan laga haysto xaaladii ku nool yihiin garan maayo marka qasab bay noqotay wixii dhacaya meesha loo badan yahay danaha la yaqaan maxaa lagu sameeyay airport kay igu yimaadeen Xismaan Caana Geel baa igu yimid sidii wax protocol soo dhaweynaya la iska dhigay shadadeedii yareed waa la ii soo qaaday baasaboorkii ma anaga ku haynaa waa baabuur waa diplomacy waan ku haynaa inaga soo qaada gaarigii baa la ii saaray xaqii gurigeygii la ii geyn lahaa ayaa hodan la igu leexiyay gurigii hooyaa la geeyay otan albaabka la dhigay laakiin ma soo bixi kartid gurigii hooyada ma sha ayaa anta house arrest way ka fiican 6 bilood ayaa igu jiray markaas dharkan aan gashanahay waa dharkii qurbaha aan ku gashanaa dhar ma haysto Allahu akbar gurigeygii way haystaan qof UN ka soo shaqeynaysa baan hoo xogay account bankayga dhowr iyo 20 baa igu jiray kunoo shilin ila shilimaadka bariga lagu shaqeyn jiray ayaa igu jiray waa la qaatay gurigeyga waa la qaatay waxa iga daran markaan maxaa ugu qaalisanaaye guriga ugu jiray waxyaalaha jacaylayde waan ku soo wadaay waxaan xataa galaaftay dahabkii hooyaday oo iyada maadaama hodan deganayd anna guri aan deganaade askari iyo ciidan joogo waxaan tiri hooyo waxan waa lagu soo dhici waa lagu dili doonaa kan halka kuugu hayee iyagana kuwaygii intii halkan tiila baan ku daray wixii la qaatay waxa kamid ahaa waxyaabo badan oo hadiyado seef dahaba
oo siiyay Sacuudigu waxyaabo badan oo maxamed iyo guriga aan ku sharaxi jiray waxyaabahaas oo dhan iyo waxay gurteen laakiin wax bay iga qaalisanaa waxaan xayawaankan jeclay waxaan soo koriyay laba shay marka kulay bisadaha iyo wax xayawaan iska jeclaa umalaada islaamaha caruurtooda ku mashquulaan أنا حيوانات يبان يسوق رجري هاري معد بكا إيو جدودني أيان سوكري لابد ربايت بيقاتين لابد بس إذا ده جورج بيسده هو يسجع ورجع أنا يسجع شو كل يسجع أي يسجع شو ده صدقتير بكرة هاري معدكم ده حرا سكور ورجع شري ميرا كبقي شريني تمر ربايت بوها الله إحنا عندنا حمية اللي شري ويلك هي عديها هي كمان ما هو كل عيار يا ده هو كيرح حقت لكن هو عيار واحد شو جدودنا هلا متبوها markii aniga guriga la igey ayaa dhaxdo bal waxaan ka baryay bal gurigayga haystabo harimacadkii ii keen may waxaan sidaan u baryay waxaan saa aabahayna uma baryin sidaan u baryay oo bahalka ay soo badbaadiyay halkii bay ku toogteen kulay harigiisu bay iibsadeen naxariisna ma gelin marka aad bay naxdin weyn bay markii mar dambe aan ogaaday إلا الدليل. قولي روحوا فيلا سوماليا كيلو رجع. ما فيلا سوماليا مو هنا روحوا قولي ليدو فيلا سوماليا ده بينها كجرا. كليدو. ليدو قولي ليدو كسر. أنت كدب. طبعا وضيق والله حلي. هذا منشقات. كسر. هذا كشقة يستمر كي تنبه أنتي تنبه. تشغل يدو شقة تا ولي قد باحد. هل كاجي معلمة هذه. وحا ما هرتا markii la iga dul qaaday ayaa maalin maalmaha kamid ah ayaa waxa ii yimid reerku markii iga guureen hooyo iyo ciyaalku hooyo caruurtu iga guurtay ayaa waxaan u dhigay waxaan bixiyay 10,000 oo shilin oo deybaajiya baabuur iska rigo ah oo Toyota ah oo dabta reerka u shaqeeyo oo de wax biilkooda ayaan ugu tala jiray 10,000 ee aan bixiyay dabaajiga ahaa iskaba iloobay ila waatan qab iyo qub iyo xarig iyo balaa dhacday maalintii dambe ayaa waxa ay yimid sharikadii aan ka iibsanayay ayaa ay timid waxay leedahay baabuur baad naga dalbatayo dabaajigaasna waan ka haynaa gaarigana dee bil iyo dheeraad buu dekada yaala dee ma baaqigii baad keeni oonu gaariga kuu soo saara ama mise waad fasixiyo lacagtaadii baan kuu soo celinaa ana 6 bilood horteed baa $8 la soo galay magaalada lacagtaydii ii keen oo gaarigana fasaxa dee way haddaba saxeexo waan u sii daayay waxaan ka bilaabay farmasi waqti loo jeedo farmasi edna ilaa iminka via Makka Mukarrama waxa la farmasi edna guriyaha ka dambeeyaan deganay farmasi edna guriyaha ka soo horjeedaan deganay farmasi edna gaariga kaga deg waa tilmaam bay noqotay dadkaasaan ka bilaabay waxaan bilaabay inaan halka markaa dumarka uur kale ku eego waxaan markaa bilaabay inaan bay horta waxa ka horeeyta farmasi horta intaynaan gaarin anigoo halkii ku xiraysan ayaa jubba gubatay hodheelkii jubba gubtay waxaa lagu soo reejooga ayaa waxaa la doonayaa dhaawac badan soo dadkii baa hodheelka ka soo badbooday oo qaar gubtay iyo qaar jajabay iyo qaar haftay iyo dee hodheel dhan oo dadkii ku jiray ay ka soo dayaaceen isaguna wuxuu ahaa kuwan day martay la isku xidhxidhay ee plastic u badan marka ololkii bay wada qabsaday markaas ay dhicidi farsamo caafimaad wax ka garanaysay halka kaale fadlan isbitaalka Digfeer degdeg u kaalay aniga xaaladda isbitaalada waan garanay in ciidan loo baahan yahay albaabkii waan furay laba askartii meeshay taagantay waan soo baxay waxaan isbitaalkan tagayaa dhaawacaas lu tagayaa ee ma weydana raaci
مثال كده نقول سوق كوي كوي لا اللي يبحث مركا أمرنا لغمسين توكتا أمرنا لغمسين كتينية إلاليهم بليل يبحنون بليل لا يبحنون توان صباح مركاسي إني مدتي يقول شيء ده نشوف كحشودة ده ما أمر مركاسي ده يصور راع إسبتال كاسي متجه ده يصور راع ده دوني سنة إسبتال كي بانه داوعي دوري أفرتني موجي ومرو بداوع هذا قبتي واحد شبي وحيبانو مالنتي أردن يهبينكي أردن كشقينين صبحي dambe markii waagi noo bariyay qaar la qalay ka soo noqdeen qaar la hagaajiyay qaar la kabay qaar dhinteen habeen iyo maalin isoo bixisa markaan shaqeynay baan subaxii dambe soo baxay askartii ma joogto waan soo lugeeyay gurigii baan imid askartii ma taagna maalintii baa askartii ugu dambeysay marka horta warqad la igu sii daayay iyo ma jirto jubbahaas ayaa markaas dadka ku sii daayay ummadda sii daysay ummadda iyo niyadoodan baa sii daysay war gabadhan meel xistaal tagtay dhaawac soo shaqaysay dabeetana iska soo noqotay hor ilaah ummadda wax ugu qabatay halkii bay iga hadheen doqonnimada iyo xistaaladana way igu yaqiineen oo markaa haddaba lacagtii yareedee deebaajka ii timid markaasaan farmasiya furay farmasigiiba markaa dee dumar uur laayay imanaya dumarkii uurka lahaa de way dhalayaan dad aan hore uga dhalin jiray oo ma hargeysaan uga dhaliyay ayaa dee ka mid ah oo le labaan hore u dhalo labadaba iga dhaliyee min fadlak cid kale ha igu hadlayna iraac ana raac markaasaan raaci jiray markaasaan intaan istaalka geeyo ayaan ka soo dhalin jiro ama guriga badda aan kaga dhalin jiray halkaasaan markaa xaqal biilka iyo xaqal reerka iyo biyaha iskaga bixin jir halkaas ayay markaa sidaas ahayd dabeetana waxa i soo helay bilayskii baa haddana i soo helay ma intaan horta bilayskii soo helin waxay helay dhakhaatiirtii talyaaniga ahayd oo anigoo cistaalkan wax ka dhalinaya oo haddana shaqaalihii meesha aan ahayn iyo sidaan ugu shaqaynayo iyo waxa aan qorayo ayay ka yaabaan ma dhakhtarad baa tahay ma umulisaanahay waa xageed ka shaqaysaa dee ma shaqeeyo gabadhana waan soo raacin ka dhalinaya dee haddaan kuu baahano maad nala shaqayn oo cistaalka bilayska madiina ayaanu ajaanibka kaga dhalina cidna farsamo taqaanana ma hayno marka ajanabiga ii yeedhi jiray markaasaan tegi jiray cistaalka markaasaan uga dhalin jiray markaasaan xaqal jeebkaygana ka qaadan jiray markaasaan bilayskii isoo helay maadaama dabad cistaalkan ka dhaliso aan mushaaharo kuu qoro markaasaan haddaad mushaaharo maxaad ii qoraysaa intaa dee intaa idinku shaqayn maayo intii aan dalbaday baa laygu qoray 1960 kun iyo waxa weeyaan waa 1972 weeyaan markii hore ee aad halkan ka bilowday hargeysa soo noqotay 1960 kun shilin bay kun shilin bay ha 1970 bisa lagu qaaday kun iyo shan baan ku siinaynaa bay yiraahdeen 1500 ha taa haysta baan 1500 way adigu waxa yiraahdaa miisaaniyadda dawladda waxaan ka siin doonaa 1500 allowance baan ku siin Allah bilaysku cistaalka bilaysku wuxuu ku siin doonaa 1000 shilin 2500 baan ku shaqayn jiray iga badnayd marka halkaas markaa shaqadii ku noqday dabeeto halkaas ay ka sii socday markii waa tii dabeetana dagaaladii iyo waxba iska waxa dhacday in 1900 iyo 1970 horta waxa wadankii dee wuxuu iska noqday towradii uu halka noqdahayo markaas hayaa markaas kolba waa la xidhaa markaas la soo daayaa markaas mar waxa la igu xidhay kaandiid baan ahaa oo waxaan ahaa soo bartayna oo tii waxaan ahaa kaandiid towrada ka soo horjeeda waxyaabahaas igu sheegi jireen markaa ka soo soco 1977 dagaalkii waxaa la galay Ethiopia waxaa laga horta waxaa jira 76kii ayaa horta uu diyaar garoobay siyaad barre maynaan uga soo diyaar dagaal buu diyaar garoobay anigoo markaa madiinadii ka shaqeeya
ayaa maalin laysoo la ii yeedhay wasaaradii baa lagaa rabaa wasaaraduna markay wufuudu imanayso iyo ayay igu shaqayn jireen kaale oo la hadal oo kaale oo caynkan oo kaale oo wax uu sheego oo shaqaale xabaan tababari jiray oo adigu igu shaqaysan jireen anna hawsha way igu yara badnayd markaas ay ma cid kale u dira idin ma imanayaan markaas ay ma waa amar waa inaad timaadaa wasaaradii baa nimid qolkii hanuuninta oo afka laga joogo oo shaqaale caafimaadkooda meesha jooga ayaan soo galay markaa waxaa hadlaya nin baa hadlaya oday ah nin da-weyn oo le jaalle wasiir anigu xishidhood baa keli layga saaray suun ma xidhan karo xalana ma geli karo fadhiiso waryaa waad gelaysaa jaalle waad gelaysaa fadhiiso mid kala hadnala kacay anigu waan jilbala ahay oo gaardis ma geli karo jaalle fadhiiso waad gelaysaa markaa maxay dacwadii maxay tii isha cali ka laalaada mid keliyala oo xishidhood qalay iyo mid oday oo jilbala oo leeyahay waad gelaysaa waan gartay wax meesha la isugu yeedhanay tahay hay lay wado markaas ay jaalle waad habsaantay waad daahday xalna lagu geynayaa maxaad ka qabtaa markaas xalna la geynayaa weligaa baan rabay inaan xalana galo weligaa baan askarnimada jeclaa diyaar baan ahay waxay doonayeen inay raado maanigo caynkan aha maanaad geynaysa maanigo qof dumar ah oo la jaalle fadhiiso oo la bahdilo waxay soo xalana maaha soo military maaha weligaa baan rabay in militariga galo waa goormaa la gelaya isniinta la gelaya xaadir diyaar baan xalanaad gashay marka xalanaan gal waa 17 marka waa 17 waay 17 xalanaan galay 11 dumar aan ahay mid uurku halkaas u maraya waa ku jirtaa odayaashii maalintii lahaa waanu jilbalaanahay waanu keliyalaanahay waana la mid waa dadka nagula jira dadka inta imika aad garanayso xalana la geey uurka halkaas u maray waa ku jirtay gal waxaa la yidhi ku dhaxo mushawarka waxaa mayadoo calool weyn ma way iska calool weyneydee malaha dee sagaal maalmood adigu 6 bilood 7 maalmood ay ahayd dee markii dambe dee waxay u baxday way baxday waa la sii daayay markay bilyal nala joogto waa la sii daayay dee maxay samaynaysaa dee miskiinadu odayaashii dee waan iska fadhiistay baan oran jiray dareyskuun gashada oo sariiraha gigijiya saniire cali guhaad ayaa nala mid ahaa kala horin baanu hayno midkaa ayaa ka mid ahaa kuwii ku jiray marka 4 bilood baanu ku jiray gaardis maxaan ku idhaa guurguurasho horta caafimaad ka wanaagsan weligay ma soo marin qoryo shiish toogo waa kan cali halgan baa la odhan jiray waxaan ka noqday guddoomiye ku-xigeen waxaan ka noqday horinta horjoogan ka noqday taliye kooxeed horintayadii anaga horjoogo u ahaa guddoomiye ku-xigeenna laba horrimood baan ahayn show dagaal ayuu diyaar garoobay marka wax iyagan hu dhayrtayadan oo dhan wax loo soo xireynayay dagaal baa loo diyaar garoobay dagaalka waa kay dhacay maalintay iigu naxdin badnayd markaan ka soo baxay horta wasaaradda caafimaadka la geeyo waaxda tababarka agaasimo layga dhigayo agaasimii ugu horreeyay qof dumar oo agaasimo laga dhigo ayaa noqday oo dhaawacbaa markaa jiray fara badan oo laga soo gurayay dhulka xagga meelihii aniga mid dhakhtarana lasoo raaciyay lasoo diray ee dhaawacii soo gura maxaan haysanaa waa iska rogo ayaana la siiyey waxaanu ka soo qaadaynaa jigjiga gaadhigu maalintii ma socon karo diyaaraddaa looga baqaya habeenkiina laydhka ma shidan karo habeen baanu guureynaynaa oo madow baanu sii maraynaa oo meesha uu dareewalku arki waayo kirishboy baa intuu la soo dego tooj yar ayuuna xagga ka yara baydh wadadaasoo dee aan samaysnayn baanu maraynaa horta kii dhakhtarkaa lay raaciyey jigjigo markaanu tagnay
ayaa wixii oday kaaramarna iyo wixii madaafiicdii baa dhacaysa oo sanqadhii iyo onkodkii iyo qaraxii horta kiiba horta shuban ku dhacay ويسوق حلنا مو مريض حلنا مو مريض مديرو براواني ابو هايو هرجيسه markaan ka baxnay baan nooba horta nooba nala raacin ayaa horta ku dhufatay waagii baa bariyay habeen muxuu ku bariyay habeenkii oo dhan qarax waa dhacay madfac madaafiic baa dhacaysay subaxii baan isbitaalkii aan tagnay waa iska rogo waxaan haystaa waa hargeysatay markaa tamay wajigjiga soo inaan dhaawac soo gorma Allahu akbar markaa isbitaal bad ka sameeysateen tamay isbitaalkii lagu jajabiyay wati la duqeeyay dhaawacii dhex jiifay ayaa de laga soo goraya oo wixii u baahan in hargeysa loo soo la keeno ayaa ka soo qaada marka inta soo boqol oo qof meesha joogaan mid farta yar iyo wax yar ku dhaceen oo deeg hal qaadi maayo wada wixiis waa wax iska fudud midna mid calooshii ag taalo oo de wadada iska xijin maayo wada uu ku soo dhimanaya marka kaad istiraahdo waxba loo qaban karaa ayaad iska rogada soo saaraysa marka saddex caafimaad qabaan ugu qaylo badan qaar ismaba oga waxaan soo saaray 60 ku dhawaad wax fadhiya wax jiifa wax isku jiifa markaas maryahoodii baa ku duuban oo uraya oo qormayde dheecaankii iyo malaxdii iyo wixii intaas soo maalmood bay dhayma la'aayeen gaarigii baan soo saaray gabalkii baan noo dhacay waan soo dhaqaaqnay meel dhex markaan maraynaba gaarigii banjaray layd la'aan soo moogad waxa iigu dhinaxdan badan markii waraabihii hilibkii dadka uriyay una soo hujuumay na soo hareereeyay askar ma wadataan markaa askar hal askari iyo qoriyo adigu qorisitay markaa ma aan qorisitay hal askari baa la socday oo qorisitay marka xaggan eegto waa indhihii waraabayaasha xaggan kale waraabay wayna hareereeyeen markaas wuxuu ka waabayaa kan qoriga toojku ayuu ku eriyaa de xabada waan ilaashanayna malaha xabada malaha ma jiro wuxuu sitay qoriga xabadiya laba wuxuu sii garmay adigu taayirkii bedelanay anagoo waxba ku noolay baan waa berigay ayaan hargeysa soo galay qofka naga dhintay ee ku soo dhinta meesha waan soo qaadeen ila meel lagu aasay la tuuri maaye hargeysana waa berigii soo galay maantaas ay igu naxdin badnayd adii dhaawacaagii iyo waraabihii iyo dadkan dagaalka loo diray ee aan loogu talagelin dhaawacin ee aan loogu talagelin dhakhaatiir ee aan meel wax loo sii dhigin aad bay calool xumo weyn bay igu beertay markaas waxay noqotay dad badan oo ka kici lahaa dhaawacan day way qormeen dad badan oo loo badbaadin lahaa xubno way xidheen markaas dhiigii ka xidhnay dhiigii baa joogsaday marka la xidho way u baahan in la furo oo la sii daayo waxay noqotay in 2 toddobaad kale darar weyne askar ku tababaro sa dhaawac loo dhaawaciyo loo qaado oo 2 toddobaad ayaan maalin walba tagayay darar weyne xerada militariga oo tababar dhowr iyo 40 askar aan tababaray oo hadaba kuwa u qaybiya oo meelaha la kala joogo kala dira laakiin se dadkan ummad u dagaalamaya waa inay helaan daryeel ka dhaama meesha la geynayna waxa geey ganad waa hangar weyn hangarkii raashinka isbitaal ma hangar weyn way meesha la geynaya laakiin sidee waxa joogay shaqaale iyo dad wax yar kala yaqaan baa joogay darxumo weyn iyo khasaaro weyn ayaa inaga soo gaadhay dadka dagaalamayay ee day anigu dhaawacooda aan arkayna dad Soomaaliland wada dhashay bay ahaan oo kuwana la horumarinay kuwana lagu daray dagaalka aad bay calool xumo weyn maxaa dhacay markaa ka bacdi intaad dee markii dambe haddana waanu soo noqonay xawar baan ku soo noqday odaygii markaan wada joognay waanu kala tagnay xasan keyd baan markaa iskuursanay dagaalkii ka soo noqday markuu dagaalkii ka soo noqday goray loo diray xagga meelahaas loo diray 8 bilood buu ayuu joogay markaanu 8 bilood qabnay baa laga dhigay safiir markaana loo diray Cumaan oo laga dhigay safiir Cumaan baanu tagnay 6 sanadood baan joognay safaaradda Cumaan
isagaa furay laakiin sidee waan kolba waan shaqayn jiray waa shaqo layma ogolay 1981 mar noogu timaadeen ayaana marka qalalaasa halkan ka bilaabmay gaduud baa bilaabmay markii jabhada balaaya dhacday xagga xamareed sanadkii laga soo noqday burburkii baabada mucaarad baa la sameeyey aslan baa jirta ayaa laga dhawaaqay London dabeedna waxay noqotay xare military dhulkii la oran jiray Soomaaliland Morgan iyo Balaaye iyo Jalowjaan iyo waxaas haystay ma garanaysaa qalalaasa bilaabay dabeedna dagaalada dhacay maxaad ka ogtahay amaad kala socotay amaad ka ogay dagaalada ilaa rugmadkii ugu dambeeyay 1988 lamaan joogin markaas oo waa markii Hargeysa laga dhigay la samay dhulka loo magaalooyinka qaarkood 80kii ayaan mar Cumaan ka imid walaalkay ku jiray abaabulka iyo waxa iyo ayaan bariyano walaalka leh horta aniga wiiga raac waxaan iska aqbal in la keen waqti 35 sano xagaa joogay laakiin saas loo qaatay joogida xagaa uu joogay de waxba ku tari karay way haduu isagu laba lugood laba gacmood ku raaco de xabad yar baa ku filay laakiin 35 sanadood uu joogay ama intii dagaalada ay socdeen 9 sanadood 12 sanadood dagaalku socday dadkii wax ku tarayay ayuu ahaa anaguna daan ahayn waanu soo noqonay anagu 84kii baanu ka soo noqonay Cumaan 86kii waxaan horta bilaabay 85kii inaan isbitaal ka dhiso xamar isbitaalka loo oran jiray isbitaal Edna loo oran jiray gidaarkiisu meesha xagga boole qaran gidaar dheer oo Edna hospital ku qoraa ayaan horta bilaabay kan waa kii labaad kaas horta horeeyay araasan ka bilaab tabeedana waa tii kolba la iga joojiyo kolba la iga daadiyo kolba la soo noqdo 86kii ayaanu kala tagnay ninkii aan markaa wada joognay isaguna rasaab xaqan ka ahaa dabeetana xamar baa loo soo bedelay arrimaha dibadda joogay waanu kala tagnay WHO anigoo intii hore Soomaali aan joogay dalka Soomaaliyeed waxyaabo badan oo aan bilaabay baa jiray 63kii markii xamar aan tagay in yaroo kooban baa waan isku raacnay maxamed gees ayaa ka Saciid maxamed gees baa kamid ah maxamed abihi iyo sax aniga iyo islaantii inda deeqee odayga Michael ka dhintay iyo dhowr caynkaas ayaanu isku urursanay ururka bisha cas oo samafalka abaan sameyn waxaan ka noqday xoghaye guud ayaan ka noqday waxa markaa xamar markaa aan ku noqday 84kii 85kii aan isbitaal kan bilaabay wixii aan hayay oo dhan markaa isbitaalka galiyay watii wabrigi shidaalku raashinka ahaa ee 5 litir saf loo gali jiray watii sonkortu raashinka ahayd buug yar wax lagu qaadan jiray lacag ma haysto ururkii bisha cas ee aan wax ka aasaasay in distoorkiisa wax ka qoray ee aanu dhowr iyo 60kii xoghaye guud ka ahaa ayaan shaqo u doontay oo wixii yaryaraay beriga amaanta bari jiraa jooga meesha bal CV-gaaga keen de CV-gayga waa keen adiga wax kugu baray bal isniinta noo kaale maanta shir baanu leenahay waxaan daba ordayaa mushaharta 700 oo shilin inaad ka hesho isniinta kaale xaadir arbacada soo noqo waan soo noqdaa hebel ma joogay hebel heblayo san waaya shidaalkii yaraayay 5 litir maalinta aan soo qaato wuxuu iga baxaa bisha cas daba orodkeeda iyo hebel daba orodkiisu iga baxaa islaanta hooyaday baa kirada yar ee guriga aabo ee berbere iyo Hargeysa inta kirada ayaan ku biilayaa iyadaan kolba aan ka qaataa 5 litir iyo marka waxa sameeyay shaqo yar oo islaanta horta bilbiilkeeda horta aad ugu dayso kaga kaaftoodo doono shaqa meel aan isla shaqad ka helaysan taa bisha cas baa jirta
ayaa WHO bay la soo xidhiidhay xafiiska WHO baa laga yeeray waxay degdeg baa lagu doonayaa kale wafti imanaya iyo bay ku leeyeen bal raac oo waf celi ana shaqadii yareed bay iga dhex galayaan in eryanayeen ayaga eryanayaan berrito waa tii layla ballamay waana adigu degdeg u kaalay waana mid warqad baa la dhiibay وانا خريستي وانا فريستي وانا خريستي مر لبعض waxay si degdeg ah waxaan ku doonaynaa inaad timaado xarunta WHO oo regional advisor ka noqotid oo ku yeelatan ka hadal nursing midwifery advisor ka noqotid oo ku yaala Iskandariya Alexandria marka waa North Africa iyo North Africa dalalka Carbeed oo dhan ilaa Afghanistan ayaan xukumi jiray Afghanistan Pakistan Iran inta carabta oo dhan marka halka lagu qaato waa 68 sagaal waxa la yiri horaan ugu shaqeyn jiray oo deer passportku la sipaasigayga waa lagu hayaa ticketka inta lagu goynayo baad haystaa degdeg baa lagu rabaa waxaan ku baxay matter of weeks waxaan xamar kala dhoofay $30 ayaan kala dhoofay United Nations kii baan tagay kursi baa xafiiska baa la fadhiisiyay waxa la yiri berrito iyo saad dambaba waa uu xidhan yahay xafiisku oo waa weekend iyo Eid baa jirta maxaad horumaris u baahan tahay ta horumaris maxaan u baahan maana idin shaqeeyay waxay mar hadaad contract ka saxiixday horumaris baad leedahay $30 baan isku ogahay samoogid oo maxaa la ogol yahay $30 tii waxa mushaharkaaga kala 50% mushaharkaaga waa lagu ogol yahay oo hadaad doonayso maanta waa inaad qaataa maanta mushaharkaagu soo kumsaan lagu qaatay tii markaa 7,000 iyo 8,000 iyo meelahaas ay ahayd oo dollar iyo gurigii iyo baabuur guriga waad ka karaysanaysaa ee waxa ku dheer safarada iyo gunooyinka iyo waxaas ku dheer 700 waan daba orday 7,000 ilaahay iyo darajo ana waligay ana filay halka inoo joogo halka inoo taagna qaybo kale oo kamid ah adna aadan Ismaaciil oo aan kulay anigu u arko inaan muddo gaaban iyo barnaamijyo yaryar iyo in gaaban laga xiisa bixi karin hase yeeshee aan soo ururiyay qaybo badan oo kamid ah qaybo kale oo muhiim ah way hadheeyeen halka inoo taagnay wayno toddobaadka dambe aad baad mahadsantahay adiga badan